asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan maalin wanaagsan sidoo kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena wargeys sirub ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo qodobadii sportska ugu dambeeyey fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nugu cusub janaalkan sabskrib inoo saar saaxiibada joogtadana u xira muuqaalka noola gareeya waana ku mahadsantihiin sida wanaag ku dhaha markas noola falgashiin waxaa marka waad ka bilaabanaa sheekooyin gudaha Spain ka jiraan ayadoo ciwaanada qaadanaysa kooxda Barcelona ma quustaan waxay taagan yihiin Bernardo Silva iyo Robert Lewandowski anaga iska leh cid naga xigta ma jirto haddii aan ku bilowno shabakadaha kasoo baxaan dhankaasi Catalanka shabakada Sport waxay leeyihiin Lewandowski kalsooni badan ayaa lagu qabaa in dabcan kooxda Barcelona ay qaadan karto waxyaaba caawina waxaa qaybka processka ama hanaanka Dion uu ku aaday kooxda Manchester United markii weekendigan dabcan lasoo gabagabay qaabka Dion ku aaday United qasnada Barcelona soo gashay 80 milyan oo euro waxay diyaar u yihiin lacagtaas barkeeda inay ku wareejiyaan kooxda Bayern si ay u soo qaataan dhinaca kale Lewandowski wuxuu Bayern u sheegay xitaa haddii la gaaro 12 dabcan July inuusan ku soo laabanin kooxdan tababarka uusan imaanin oo ay kaliya ka go'aantay ku biiritaan kooxda Barcelona ama uu dabcan ciyaaraha ka fariisan doono ama kubadda uusan laadi doonin saa darteed marka mowqifka adag uu Lewandowski taagan yahay iyo lacagaha qasnada Barcelona soo galay awgeed ayaa lagu wadaa kooxdan inay gacanta kusoo dhigaan Lewandowski sida Sport ay daabacayso waxay kaloo shabakadan leeyihiin waayihii dabcan Frank Dion waa soo idlaadeen ciyaaryahankan ugu dambeyntii waxaa loo ogolaana inuu soo aado dhankaasi Manchester si uu tijaabo caafimaad u maro wuxuuna noqonaa xidig weyn oo xagaagan kooxda Barcelona lacagaha u baahan dabcan dhaafsan doonaan shabakada caanka markii aan fiirno Mundo Deportivo waxay dabcan koobar ka siiyeen Bernardo Silva oo leeyahay kan dabcan mar walba laabta wuxuu kula jiraa Barcelona waxayna soo qaateen sawir kale oo yar oo asigoo yar oo wata fanaanada kooxda Barcelona saa darteed waxay leeyihiin Bernardo Silva markii uu shalay yaray wuxuu ahaa ciyaaryahan Barcelona haddana asigoo xidig weyn ay imaan doonaa garoon Camp Nou waxayna Barcelona farsamo ahaan ka shaqeynaysaa sidii ku soo qaadan Bernardo Silva lacag kasta oo heli karaan iyo deyn kasta oo ugali doonaan sidii Portugiiskan gacanta ugu soo dhigi lahayn maadaama macalin Xavi 24 saac ka hor shaxda uu soo bandhigay uu ka doonaya maamulka Barcelona hormuud u yihiin Lewandowski iyo Bernardo Silva saa darteed waxaa leeyahay marka Bernardo Silva Barcelona weligiisu dabcan qalbiga kala jiray ciyaarahankan haatan dabcan waxaa la keenaa Camp Nou oo City waa laga soo wadi doonaa sida haatan Mundo Deportivo ay leeyihiin sidoo kale shabakada caanka Mundo Deportivo waxay dabcan ayagana qarteen dhankooda soo qaateen Frank Dion oo ileen ugu dambeyntii uu baxa Barcelona waxay heleen lacag ay ciyaarahankan dhaafsan karaan sidoo kale shabakadan waxay qodob ka soo qaateen oo ka hadleen Ousmane Dembele oo dabcan kaliya haysta 4 maalmood gudahood inuu ku saxiixo qandaraas Koreyaal kooxda Barcelona hor dhigan oo ku aadan 50% ka badan mushaaraadka inuu ka tago halka ciyaarahankan lee dabcan wuxuu sugaa kooxda Chelsea laakiin Blues ilaa haatan fariimo aysan soo gaarsiin oo way ka gaabsanayaan dhinaca kale haddii aan fiirno shabakada Mundo Deportivo waxay qodob ka soo qaateen Chelsea oo u sheegeen Barcelona haddii ay doonayaan Cesar Spilicueta waa inay lacag bixiyaan oo wax bilaash looma jirto sida haatan dabcan shabakada Mundo Deportivo daabacaysa maadaama Chelsea ciyaarahankan qandaraaskiisa 12 bilood kordhiyeen dhinaca kale tana Barcelona ugu dambeyntii waxaa le Francesco Trincao ayay diyaar u tahay ninka inay ka takhalusaan waxaana haatan la sheegay kooxda Sporting Club inay doonayso ciyaarahankan dabcan Barcelona lacagaha badan ugu fadhiyay laakiin ku fashilmay saa darteed marka Wolves way iibsan waayeen marar kala duwan ama waa lagu diray laakiin ugu dambeyntii xagaaga ma soo laaban doono sida Mundo Deportivo ay daabacayso dhankaasi markii aan fiirno Madrid iyo shabakadaha kala duwan waxyaabaha soo daabaceen waxaa qayb ka soo qaadan karnaa shabakada Marca waxay marka koowaad ka hadleen Gareth Bale oo ugu dambeyntii macsalaameeyay kooxda Real Madrid waxay leeyihiin dhankaasi Hollywood ku aada ama wuxuu ku biiray kooxda Los Angeles FC Bale wuxuu ka qaatay kooxdan hal sano contract iyo sanad kale uu ku dari doono waxaa meesha ku soo ilaaday marka 10 sano ciyaaraankan ka tirsanay kooxda kubadda cagta Madrid waxayna Marca leeyihiin sheekadii Bale way soo ilaatay Wales iyo golofka ninkan lagama maro waa labada hubbe uu leeyahay inuu dabcan si joogta markasta ugu ciyaaro xulka Wales markuu faraaqada haystana golofka u ciyaara laakiin Madrid mushaar uu ka qaadanaa sanadii ugu dambeysay ninkan ma uusan caawinin kursi keedka ku jira saa darteed waxay leeyahay marka ninkii caan ku ahay golofka iyo Wales inuu ciyaaro hadda wuxuu aad dhankaasi Hollywoodka oo wuxuu ku biiraa saaxiibada qamabada kooxda Los Angeles FC heshiis la gaaray 12 bilood contract waxay kaloo jaraadkan qodob ka soo qaateen qaladaadka La Liga Spain ka dhacay arrimo kale ka wareysteen dabcan ninka lagu magacaabo Jose Felix Diaz oo shabakada Marca ka tirsan oo commentator sidoo kale tan radio la shaqeeyay mas'uuliyiinta Marca wuxuu dhahay La Liga Spain xilli ciyaareedka qaladaad baan dhanka faara ka dhacay laakiin waxaan rajeynaa ayuu ka dhawaajiyay seasonka dambe in qaladaadkaas la sixi doono sidoo kale tan mas'uulkan wuxuu qabaa in kooxda Real Madrid markale horyaalka difaacan doonto markii laga cabir qaato awoodda kooxdan ay leedahay iyo saxiixda dheeraadka samaysa gaar ahaan Alonso Janami kale kooxdan ku soo kordhay halka dabcan uu leeyahay Xavi asigana dhismo wacan ayuu ka wadaa Barcelona ugu dambeyntii Marca waxay ka hadleen Joao Felix oo taageerayaasha Atletico Madrid qalbiga u dhisay wuxuuna sheegay fasax markuu soo dhameysto inuu ku soo laaban doono dhankaasi caasimadda Spain xilli qaar ka mid ah kooxaha Premier League baad goob ugu jiraan sida dabcan Spurs iyo Arsenal iyo Chelsea laakiin ninkan waxaa ka go'an in Atletico Madrid uu sii joogo superstarkan Portugiiska shabakada caanka markaan fiiran AS waxay ka hadleen ayagana tartanka dabcan Wimbledon Open oo bilaabanaya sidoo kale tan xiisaha badan in Rafael Nadal iyo Novak Djokovic in loo daawan doono tartankan xiisaha badan sidoo kale saameyntooda ay wataan
waxay kaloo dabcan shabakada iska hadleen saaxiibada qiimaha badan oo si gaara diiradda u saareen arrimaha ku aadan bixitaanka Dion oo ileen ugu dambeyntii kooxda Barcelona ciyaarankooda muhiimka way kaashayaan sababta ugu weyn xitay kooxdan lacag inay u baahantay halka sidoo kale ay soo qaateen gabdhaha xul kubadda cagta Spain oo 7 gool ibar kaga badiyeen gabdhaha Australia ugu dambeyntiina waxay leen Gareth Bale oo Real Madrid macsalaamay dhankaasi waqooyiga America aad lama filaane wuxuuna ku biiray kooxda lagu magacaabo Los Angeles FC dhankaasi dabcan markii aan tagno gudaha Talyaaniga saaxiibada qiimaha badan maxaa maanta sheekooyin ka jira jaraa'idada Talyaaniga dabcan way kala duwan yihiin waxaan ku bilaabanaa marka koowaad shabakada caanka lagu magacaabo La Gazzetta dello Sport waxay cover ka siiyeen agaasimo Maldini oo maanta u dabaaldegay sanad guuradiisa 54 waxay dhaheen dabcan toortaha Maldini uu jaray waxaa kasoo dhex muuqanaya Mark Asensio sadartee marka Maldini maamulka cusub Amerikaanka waxay kaga farxinayaan ninkan in Asensio loo keenayo oo kooxda Real Madrid ka imaanaya balse agaasimo Maldini intaas kuma filna wuxuu kaga fadhiyaa maamulka cusub ciyaartooy kale kooxda inuu soo kordhiyay Milan xitaa wixii La Gazzetta dello Sport si serious ay u wajahayaan soo qaadashada ninka lagu magacaabo Francesca Acerbi oo si bilaash ku heli karaan kaas oo laasi qandaraas ku jira ka dhacay ciyaaryahankan ay Milan soo qaadanay maadaama Steven Botman ku adkaatay Milan qaadashadiisa oo kooxda Newcastle uu ku biray daafac Holandeeska kooxda Lille ka tirsan waxay kaloo La Gazzetta dello Sport ka hadleen Romelu Lukaku oo dabcan la soo bandhigayo maalinta Isniinta 24 saac nagu soo foolay kadib markii Inter iyo Chelsea ka wada heshiiyeen farsamo ahaan ninkan sidoo ku imaan lahasan Syria amaah ku imaaday Interna dabcan waxay bixiyeen ku dhawaad 10 milyan oo euro oo dabcan kooxda Chelsea la siiyay waxay kaloo dabcan La Gazzetta dello Sport cover wax ka siiyeen CR7 oo dabcan ana fadhin ama sal fadhin waxay leeyihiin Chelsea dalab u soo dirtay kooxdiisii hore Sporting Lisbon baad goob ugu jirto ee Roma kama marno xilli 24 saac ka hor Bayern ninkan iska diideen waxay ka dhigantay ka dhawaaj Ronaldo dabcan ma fadhiyo oo waxay u badan tahay United inuu isaga tago inkastoo Man United ay sheegeen in ciyaaryahankan uusan bixinin sidoo kale La Gazzetta dello Sport waxay ka hadleen kooxda Roma ku guuldareysteen qaabkii ku celin lahayn Nicolo Zaniolo wiilkan waxaa la sheegay haatan suuqa la soo dhigay xilli Juventus dabcan hoggaanka u hayso loolanka lagu jiro Corriere dello Sport markaan eegno xilan Juventus iyo Inter ciwaanada qaateen oo maalmahan ugu soo foolo waxa la soo bandhigi doonaa Lukaku Inter ku soo laabtay iyo Pogba ku soo laabtay Juventus waxay leen waa laba big signing saxiix waaweyn oo Serie Talyaaniga magacooda sare u qaadi doonaa sidoo kale waxay jaraa'idkan ka hadleen Francesca Acerbi oo laasi ka tagay kaasi ku sii jeeda AC Milan si uu tijaabo caafimaad ugu maro Talyaaniga daafaca ka ciyaar Milan wuxuu ka qaadan doonaa 2 sano contract sidoo kale Corriere dello Sport Roma ka soo baxaan waxay dhan ugu dambeyntii Roma ciyaarankooda Nicolo Zaniolo oo kala tagan xitaa waxaa la Inter ku faraxsan oo Inter ciyaaraankan hore iga u lahan jireen markii la iibiyay saaxiibada qiimo badan waxaa la sheegay 10 ilaa iyo dabcan ku dhawaad 20% lacag kasta lagu iibiyay Inter Milan qaadan doonto Zaniolo Roma waxay ku doonaysaa 60 milyan oo euro Juventus ayana qalqaale ugu jirto waxay kaloo Corriere dello Sport ka hadleen Talyaaniga oo qabsadeen dunida gaar ahaan markii la fiiriyo tartanka ciyaaraha dabaasha ee tartanka caalamiga oo ka socda dhankaasi Budapest Hungary kadib markii 7 bilood oo dahab ku guuleysteen waxay leeyihiin Talyaaniga oo qabsadeen biyaha caalamka wacdaran caadi ahna way dhigeen Tutti Sport markaan eegna saaxiibada qiimaha badan ayagana maxay ka hadleen laba mowduuc ee diiradda saareen oo dhaheen Talyaaniga oo dunida qabsadeen kadib markii ciyaaraha tartanka dabaasha dunida 7 bilood oo dahab sii marayaan sidoo kale tan ay ku jiraan waqtigooda ugu fiican Budapest marka ciwaanada ciyaaraha fudud ka socda Talyaaniga haystaan waxay kaloo ka hadleen Di Maria oo dhaheen diyaaran ahay Juventus imaana waxaa lagu wada maalmahan ugu soo foolay ninkan Juventus inuu imaado si uu tijaabo caafimaad u maro 2 sano contract uu kaga qaato sidoo kale tan waxay qodob ka soo qaatay Maldini cabashadiis dabcan haatan dhulka laga qaada waxayna diyaar Amerikaanka cusub Milan iibsadeen in agaasimaan Asensio u keenan iyo ciyaartooy kale suuqa laga baaday goobo laakiin lacag fara badan Milan looma hayo suuqa ay ku gasho ugu dambeyntiina Tutti Sport waxay leeyihiin ciyaaraanka lagu magacaabo Bright oo Belgium ka kaasoo dabcan Torino ama kula jooga City iska leedahay waa laga heshiiyay qiimihiisa oo Torino ayaa toos u qaadanayso bal markaan aad tagin dhankaas iyo gudaha Ingiriiska maxaa maanta sheekooyin ka jiro jaraa'idada Ingiriiska waxay ka hadlayaan Gareth Bale oo dhankaas Manchester Soccer League aad halkii uu dabcan ku soo laaban lahaa gudaha Ingiriiska xilli markii la fiirshay Cardiff City iyo dabcan Spurs baad goob ugu jireen balse wuxuu doortay waqooyiga America inuu aado Los Angeles Galaxy ayuu ku biiray ama LFC ayuu ku biiray sida haatan diiwaan gashan sidoo kale waxay dabcan jaraa'idada Ingiriiska hadlaan markii la fiirshay Chelsea wada xaajood kula jirta ninka lagu magacaabo CR7 laakiin waxaa leeyahay Manchester United way ka feejigan tahay Ronaldo ma fasaxi doonaa waxaa kaloo arrimaha dabcan jaraa'idada qaybka ninkii ahaa dabcan Riyad Mahrez oo ka aqbalay Man City qandaraas ku dhin 3 sano contract cusub oo qalin ku duugi doona sidoo kale tan ciyaaraankan wuxuu diyaar u sii joogo garoonka Itixaad qodobada goosip markii aan firin ciwaanka ugu horeeya waxaa qaadanaya Chelsea oo diliqti ku dhow qaadashadiisa Juventus waxay diyaar u tahay Timo Werner oo 26 jir lacag inay qaataan si ay u soo fasaxaan Holandeeska 22 jirka oo qandaraas ku dhin diiday sida haatan Sky Sports ee daabacayaan dhinaca kale waxay leeyahay Ronaldo mowduuc wuxuu noqday haatan taagan kadib markii la sheegay wakiilkiisa Jorge Mendes inuu la kulmay milkiilaha cusub ee kooxda Chelsea Todd Boehly waxaa la leeyahay CR7 waxaa laga yaabaa United inuu ka tago xilli shabakada Athletic ee lada xitaa Roma qalqaale ugu jirto laakiin Man United waxaa ka go'an mowqif aan Ronaldo gacantooda inuusan ka baxsanin dhinaca kale Manchester United waxay kalsooni badan ku qabaan ugu dambeyntii
toddobaadkan gudihiisa inay soo gabagabeyn doonaan qaadashada Frank de Jong oo la sheegay inuu kusoo wajahayo Old Trafford. Barcelona waxaa lagu wareejinaa 69 milyan oo pound sida haatan goal.com iyo shabakada Min ee daabacayaan. dhinaca kale waxaa leeyahay Manchester United haddii ay isku daydo garoonka Old Trafford inay ballaariso ama ay dabcan dib u cusboonaysiiso kooxdan deymaha lagu leeyahay waxay gaari doontaa 1 bilyan oo pound culays xoogan ku noqon doontaa sida haatan shabakada Mirror ee daabacaysa. Waxaa macquul marka qorshaha Old Trafford lagu ballaaranayo ama lagu casriyanayo dib in loo dhigo. dhinaca kale Everton iyo Spurs waxaa u socda wada xajood meel fiican marayo ku aadan Harry Winks oo 26 jir sidoo ku aadi lahaa dhankaas Everton sida Sky Sports ee soo daabacday. dhinaca kale Juventus iyo Paris Saint-Germain ayaa la sheegay wada xajood inuu bilaawdo ku aadan sidii Neymar oo 30 jir uu ku imaan dhankaasi magaalada Torino inkastoo Chelsea xitaa qalqaale uu jirto sida haatan shabakada ay say daabacayso. waxaan kaloo soo qaadan karnaa Arsenal ee dardar gelinaysa qaabkii Rafinha ay ku qaadan lahayd kadib markii la sheegay dabcan 26 jirkan Barcelona inay ku adkaatay qaadashadiisa. Barcelona haatan waxay diirad saaraysaa oo kaliya Bernardo Silva Lewandowski sidii kusoo qaadan lahayd sida haatan shabakada Athletic ay daabacaysa taasoo marka Arsenal favorite ka dhigayso qaadashada Rafinha. dhinaca kale saaxiibada qiimaha tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa si gaar ula hadlay ninka lagu magacaabo Raheem Sterling wuxuuna u sheegay inuu qaadan doono 27 jirkan balse Tuchel wuxuu ka dalbaday Sterling waqti inuu siiyo maadaama Chelsea haatan ay ku mashquulsan tahay heshiiska De Ligt iyo qorshayaal kale laakiin Thomas Tuchel wuxuu u ballan qaaday Sterling inuu qaadan doono sida Telegraph ee daabacday. dhinaca kale James Rodriguez 30 jir Everton hore ugu ciyaari jiray Real Madrid iyo Monaco iyo Bayern iyo sidoo kale kooxaha kala duwan waxaa la sheegay dib wuxuu ugu soo laabanaa qaaradda Yurub asigoo kasoo tagay kooxda Al Rayyan ee gudaha qatar ka dhisan sida haatan Fabrizio Romano uu soo daabacay. dhinaca kale Jadon Spencer oo 22 jir daafaca kaga ciyaaray Middlesbrough laakiin xilli ciyaareedka hore ama kula joogo Nottingham Forest asna wuxuu weydiistay kooxdiisa inay fasaxdo xilli dabcan kooxda Spurs qalqaalo xoogan ugu jirto sida Football London ay daabacayso. dhinaca kale Leeds United ayaa dalab gaaray 26 milyan oo pound ka gudbiyeen ciyaaryahanka dabcan weerar kaga ciyaara kubaddana u sameeya kooxda Club Brugge iyo Belgium ee lagu magacaabo Charles de Ketelaere oo 22 jir kadib markii ciyaaryahanka Milan ay qaadan waasay sida Daily Mail ee daabacayso. ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan sheekooyinka soo qaadan karna waxaa qaybkii Aaron Ramsey ayaa ka niyad jabay kadib markii dabcan ciyaaryahankan uu rabo inuu ku biiro kooxda Andrea Pirlo hogaamiye Turkiga ee lagu magacaabo Fatih Karagümrük. ciyaaryahankan 31 jirkan Juventus waxay rabaan isdhaafsiin laakiin ilaa imin koox uu ku biiro la naadiga Turkish ku dhawaana dabcan way isfahmi waayeen oo waxaa la haatan Torino sii joogi doona xilli qandaraaskiisa ka harsantay 12 bilood oo qura sida The Mirror ee daabacayso. ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan aan soo qaadano kooxda AC Milan fiirnina iyo dabcan qorshayaasha ee leedahay xagaaga markii la fiiriyo gaar ahaan ciyaaraha Brazilianka ciyaar doona waana dabcan ka xunnay shalad inay hilmaamay inay la wadaago koox caan ah soo qaata ciyaaraha saaxiibtinimo u diiwaan gashan xagaagan kahor intuusan bilaabin horyaalka. maantana diiradda waxaa noo saaran kooxda Milan xilli ciyaareedkan cusub wuxuu u noqon doonaa midkeeda 124 oo ay dabcan kubadda cagta ciyaarayso sidoo kale tan wuxuu u noqonaa sida guud xilli ciyaareedkii 89aad oo ay ka soo muuqan doonto horyaalka heer koowaad ee Talyaaniga. naadiga waa difaacadayaasha Italian Serie A xilli ciyaareedkan cusub sidoo kalena waxay ka qayb qaadan doonaan UEFA Champions League, Super Cup-ka Talyaaniga iyo Coppa Italia. haddii aan fiirino kooxda Stefano Pioli hogaamiyo maxaa u qorshaa kulamada saaxiibtinimo ciyaari doona saaxiibada qiimaha badan. Milan haatan waxaa u diiwaan gashan in dabcan kulamo saaxiibtinimo ciyaari doonta Braziliankooda wuxuu bilaaban doonaa 16 July tartan loo yaqaano Telecom Cup ay ka qayb qaadan doonaa gudaha Jarmalka lagu ciyaarayo. ciyaarta ugu horeysana waxay la ciyaari doonaa kooxda lagu magacaabo FC Cologne. kulankan waxaa lagu ciyaara dhankaasi Cologne ee gudaha Jarmalka lagu ciyaara 16 bisha July nagu soo fool. sidoo kale waxaa u diiwaan gashan kulan saaxiibtinimo gudaha Hungary inay kula ciyaari doonaa kooxda lagu magacaabo Zalgiris hadduu alla idmo 23 bisha July ee nagu soo fool. sidoo kale kooxda Milan waxaa jadwal kugu jiro 31 July inay la ciyaaraan kooxda Marseille oo dabcan kulan saaxiibtinimo kula ciyaari doona dhankaasi dabcan gudaha Faransiiska. ilaa iminka Milan 3 kulan ayaa dabcan u diiwaan gashan saaxiibtinimo oo dabcan kulan gudaha Jarmalka ay ku ciyaarayaan kulan Hungary ay booqanayaan ku ciyaari doonaan iyo kulan dabcan ay tagi doonaan dhankaasi Faransiiska. marka Milan waxaa muuqata inaysan ka bixinin qaaradda Yurub sida haatan dabcan diiwaan gashan inkastoo wax kasta isbedeli karaan. guud ahaan barnaamijkeena wargeysa Yurub ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo qodobada sports ugu dambeeyay intaasaan kusoo elinana fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar oo ku mahadsantihiin daawashadiina. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.